أبالي بالسواد من يعش لله يمضي باذلا كل العتاد. kooxda Taliban ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay guulo la taaban kara ka soo hooyeen dagaalka dalka Afghanistan iyagoo hadda kharka u saaran in la wareegaan guud ahaan dalka. ururka Taliban oo haatan wada guluf culus ay kula wareegayaan in badan magaalooyinka muhiimka ah dalkaasi Afghanistan ayaa waxaa 2001 awoodda ka tuuray Mareykanka oo waqtigaas Afghanistan xoog ku galay. Taliban waxay iminka kaabiga ku hayaan magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan. lama hayo tiro sax oo ku saabsan awoodda military kooxda Taliban ee dalkaasi Afghanistan, balse khubarada ku urgashay ayaa ku qiyaasay 150,000 oo dagaalyahan taas oo boqolkiiba 50 ka yar tirada militariga Afghanistan. dagaalyahanada Taliban ayaa waxaa u badan qabiilka lagu magacaabo Pashtun, balse waxaa sidoo kale jira dagaalyahano kale ka soo jeeda qabaa'ilo kale iyo weliba dalal kale oo muslimiin ah. kooxda Taliban ayaa u dhisan si ka duwan sida ururada kale ee mintiidiyada ah, isla markaana waxay leeyihiin hoggaan nidaamsan. waxaa inta badan kooxda hoggaanka military u haya abaanduuliyaal la soo dagaalama midowgii Suufiyiinta xilligii sagaashameeyadkii. abaanduuliyaashaas ayaa waxay khibrad u leeyihiin sidoo loo weeraro iyo dhinacyada ugu sahlan ee laga weeraro magaalooyinka muhiimka ah ee dalkaasi. dhanka awoodooda marka la barbar dhigay xilliga xukunka laga tuuro 2001 aad ayay ugu hooseysaa. dagaalyahanadan Taliban ayaa la sheegayaa in waxyaabaha u sahla inay dagaalkaasi ku guuleystaan ay ka mid tahay inay yaqaanaan qaabka lagu dagaalamo dhulka hawdka iyo weliba buuraleyda. dagaalyahanada ururka Taliban ayaa waxay intooda badan ku hubeysan yihiin hubka fudud, balse waxaa sidoo kale jira inay haystaan hub culus oo tiknikada loo yaqaano. hogaamiyaha kooxda Haybatullah Akhundzada ayaa hoggaanka ururka Taliban ee Afghanistan la wareegay 26 May 2016 markaasi oo golaha shuurada ee xerada ay xilligaasi u magacaabeen. wuxuu bedelay hogaamiyihii hore ururka ee Akhtar Mahmoud Mansour kaasoo lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ay 22 May 2016 soo qaaday diyuurad Amerikaan ah. Haybatullah wuxuu dhashay 19 Oktoobar sanadkii 1967 sida lagu sheegay taariikhdiisa lagu shaaciyay barta internetka ee rasmiga ah ururka Taliban. wuxuu ku dhashay degmada Bajwai ee gobolka Kandahar wuxuuna ka soo jeedaa qowmiyadda Pashtuga, waxaana la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xubnihii aasaasay xarakada Taliban. dagaalyahanada Taliban oo soo ifbaxay horaantii sanadii 1990 waxayna markii hore bilowdeen waqooyiga Pakistan. waxay kooxdan soo ifbaxday kadib markii uu dhamaaday dagaalkii midowga Suufiyeed ee dalka Afghanistan. in badan xubnaha ka tirsan Taliban waxay u badan yihiin qowmiyadda Pashtun oo ah qowmiyadda ugu tirada badan Afghanistan. waxaa la rumaysan yahay in markii ugu horeysay hawshooda bilaabeen ay qarash ka heli jireen dalka Sacuudi Carabiya. markii Afghanistan la wareegeen waxay kooxda Taliban dalkaasi ku soo rogeen shareecada Islaamka. intay xukumayeen dalka Afghanistan waxay kooxda Taliban ay mamnuuceen dhageysiga heesaha iyo sidoo kale shineemooyinka iyo sidoo kale gabdhaha da'doodu ka yartahay 10 sano iyo in ka badan ee iskuulada aadaan. dalalkii aqoonsanaa intay xukunka hayeen Taliban waxaa ka mid ahaa dalka Pakistan, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. tiro ka badan 45,000 oo ciidamada ammaanka ayaa lagu dilay Afghanistan 5 sano ee la soo dhaafay.